madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa wuxuu ka hadlay dagaalka ka dhaxeeya Iiraan iyo Israa'iil. Wuxuu ku tilmaamay dagaal aad iyo aad u halis ah oo ka dhacay buqcad ama meel muhiim u ah adduunka oo dhan. madaxweynuhu isagoo arrintaa ka hadlaya waxa uu yidhi waxaan doonayaa inaan in yar ku baraarujiyo shacbiga Soomaaliland. maanta dunida colaadaha ka bilaabmay. horta dunida waxaan ugu baaqaynaa nabad. dunidu waxay ka warhaysaa wixii dadka ku dhacay dunida dagaalkii koowaad iyo kii labaad. dunida waxaan u sheegaynaa inaan loo baahnayn dagaal saddexaad. waxaa laga yaabaa colaadaasi saamayn bay nagu yeelanaysaa negative ama taban. colaadu meelaha ay ka socotaa waa meelaha dunida ugu muhiimsan. marinka Hormuus, badda Cas iyo Gulf of Aden waa meesha ugu badan ee ganacsiga adduunka uu maro. marka horta waxaan ku baaqaynaa in nabadda lagu soo noqdo, innaguna aynu u diyaar garowno saamaynta ay nagu yeelan doono colaadaas. dagaaladaas iyagoo ay sababi karaan xaalado nololeed oo aad iyo aad u adag, isla markaana ay saameyn ku yeelan karayaan isu socodka adduunyada, ayaa wuxuu madaxweynuhu uga digay ganacsatada inaanay ka faa'iideysan xilliyada adag. ganacsatada waxaan uga mahadnaqayaa inay weligoodba kaga jireen dhismaha dalkooda iyo daryeelka shacbigooda kaalinta koowaad. laakiin maadaama laga yaabo arrintaas inay saamayso kaydka aynu haysanno oo kooban, hadduu raashin yahay iyo hadduu shidaal yahayba, aanay fursad u arag dadka ganacsatada qaarkood in qiimaha markiiba la kordhiyo aynu baxnaaninana sida xaaladdu isu beddelayso.